Dowladda Rwanda ayaa ku dhawaaqday in ay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay Belgium-ka, iyadoo diblomaasiyiinta Brussels ku wargelisay in ay dalka uga baxaan muddo 48 saacadood gudahood. Rwanda ayaa Belgium-ka ku eedeysay inuu adeegsanayo been abuur iyo marin habaabin si uu u abuuro aragti colaadeed oo ka caloonsanta bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Belgium-ka, Maxime Berford, ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid xad dhaaf ah oo muujinaysa in Rwanda aysan dooneynin in lagu heshiiyo arrimaha la isku khilaafsan yahay. Wuxuu intaasi ku daray in Belgium-ka ay si la mid ah uga jawaabi doonto arrintan, iyada oo diblomaasiyiinta Rwanda laga musaafurin doono dalkaasi. Xiisaddan diblomaasiyadeed ayaa ku soo beegmaysa xilli hogaamiyayaasha Afrika ay dadaal ugu jiraan in la gaaro xabad joojin waarta oo lagu joojinayo colaadda ka taagan bariga Congo, halkaas oo Rwanda lagu eedeeyay inay taageerto dagaalyahanada falaagada ah ee loo soo gaabiyo magacooda M23.